koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan arbalii warrama beriga waa iga caddahay arwaa nabad qabnaahe saa wax kuu gaareen iyaadan daaway karin adigu war saa tahay ma ahe adooga biyo siiye fadheesiye aryaa aniga oon imahaya arrin kalea igu taaga soo dayay allah fududeeye minay fududaahaysa waa iga tan aniga geedkan 12 saacadood aan u soo socno jidaan soo mareenna waaye laamiga dheeray biya qaaday mayee caanaa qaadee idhegeenso mootaan soo qaadee mahay ila mari maagtaba dib u noqo naga haddana meel kale soo gal gadaalu noqo haddana naga haddana meel kale soo maray kala firay haddana ha firowdo muguugu dambays ka dego aa layidhi asan fatak ka iri ya qora laygu caalsha asaa adigana gadaalu naqan layd arbootadu anay isita aniga aqoonsigaana waa wadha ma rabna soo adiguna jidka mar hadday dan kuu tahay xaajira mugaandahayna waxaa leeyidhi shiraa socda aniguna shir hee shartiisa ma ahayn ee sharwadayaasha shirka ku dheelaa iyo shacabka daahirka looma kala fiirsado war sharta iyo shacabka astaan lagu kala yaqaano miyaa taqaanaa adugu war shirku kii garow ku soo ilaayo Soomaha ma marantiinimayo war adinkoon war hayn bad adduunyada waasheene anigay dhegaysta shirka maanta la furay meeqa dalqadooda lagu furayaa se marqaati ka ahay adeerku ma war aqaanay dhegayso haddaadan war aqaanin xabad ha ii sheegina shib iska dhehe waryaa tanoo kala arka waray dhegaysta 15 dawladooda ka soo qayb galay shirka waana kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka iskaashiga Islaamka war dawladii Soomaaliland ma ku jirtay war galmudug looma wicin laakiin Hirshabeelle joogtay war madaxweynaha Geedland Shariif Xasan laga dhigay beenta iska dhaaf war gudoomiyaha xisbiga horu socod waa Cabdiweligaas oo qaashay anigana gudoomiyaha xisbiga dib u socod ha layga dhigo waa wadaahe war dad waalan baa tihiin warka naga dhagaysta Xasan Cali Khayra ayaa maanta shirka furay khudbad ayuuna ka jeediyay waxa uu yiraahday it is a first time to hold in Somalia a meeting like this and we now have a leadership that's good for us wariya wala siin sheegan dad naartiina aayas ma ah ya war anaa ku fasiraya sugniyo Soomaaliya waa markii ugu horeysay ee lagu qabto shir caalami ah Soomaaliya waa markii ugu horeysay ee ay hesho hoggaan fiican yaa hadii hoggaan fiican la helayaa ku garwadaayahe waraadha war ma haysaane wasiirkii hore arrimaha gudaha juxa waa hadlay wuxuu yiri dawladnimada Soomaaliya burburkii kadib artay ka soo bilaabatay 18 sano ninba dhagax soo dhigay ikhyaartan hadda joogta waxay alay iska dhigteen uu yiri waa markii ugu horeysay ee roob da'o waa markii ugu horeysay ee dhir cagaaran la arko marka wuxuu yiri haddaan anigu runta ka sheego toodu waa beene waa markii ugu horeysay ee jinsiga Soomaaliga shaki la geliyo waa markii ugu horeysay ee qof Soomaali inta la soo qabto cid kale loo dhiibo war juxa lafsigiisa ayaa markuu wasiirka khudbooyinkiisa laga daba tagay intay doobnaayeen shiruu qabtay hadda ka hor oo leeyahay waa dib u heshiisiin khudbadu ka jeediyay wuxuu ku bilaabay waa markii ugu horeysay ee Soomaaliya dib u heshiisiin loo qabto war wasiirku shalay iyo maanta kee uu run sheegay war wasiirka maanta musharax waa niman yahay wuxuu rabo in idin sheegayahay ka leexda war wasiir juxa qadiija waxay ku tiri dadkan soo qayliyaya waxay ka qaraacan yihiin halka uu qarankeenu tagay war goorma qarankeenu dayax gacmeed yeesho meerayaasha tagay war ma aysiine maamul goboleedyada iyo dawladda wax heshiis oo looga fadhiyo ma jiraan ma dagaalan ka koreeyna marka iikaad waxaad rabto ka sugay dhinac walba tabartiisa inuu ku tashanayaa soo baxday waxaan la yaabanahay cabasho ka soo baxday maamul goboleedyada beesha caalamku arrinteena wax wara kama haysay leeyihiin na soo dhex gelina maayaan maxay nooga sii jeedaan ma arrintan fiirshaan yaa mahasha geela cuntay cabaaday naqdeen war dawladdu waxay ku guulaysataa leeyid in beesha lixaad beesha caalamka loo yaqaano in ay tiraahdo hana soo faragelinina war ka warrama Soomaaliland haddii arrinkiina ay soo dhex gasho war Jubbaland laga diiday inay soo dhex gasho
war haddii la heshii waayo waa la dagaalaaye in la kala adkaa waayaa ii daran war beelihii walaalaha ahay ee isku dilaysoon kalama adkaan ee waa la kala dhexdhalay war diyaaradihii daawada u siday iyo dadkii kala dhexgeli lahaaba waa la soo celisay war somalilan waxay ka shakiday inay mooshin la yimaadaan kuwaas war buntlandba waa soo celisay war waxaan dhihi lahaa tirsiis shaqo loo xulo tawaan guud loo dirtiyo awood isku tiirsanayd hadduu tuun soo dhex galo labaan isu tala sulayn midkoodna ma toosanee waxaan lagu kala tegayn dan baa laysugu tagaa waran low gabagii safaylan dhagansoyniyow lama tuug wili jeeba talamasku waafaqna leeri waxaa la yidhi lama tilaabaa tala ka dhalataa war aniga tayda dhegayso nin tuur leh taba u seexda asagaa yaqaan war abwaankii galmuran ka yimid ee wallaahi aanan yeelin dhihi jiray aawe war ma dheegi jirna isanka waa u beray lambukolka uma dheegi jirne uu siiyoonay geeljiraagii dheer lambukolka waanba tartamo hayaan war aan war idiin sheego maalin dhoweed madaxweynuhu wuxuu tegey maxkamadda waa yaabe cambaroy madaxweynuhu wuxuu ka dacwoohaya xaase laga hadleeyey cabdullow wax ma ogide shacabka ay u dacwoohaayay wuxuuna yidhi cadaalad ha lagu maamulo ma laga yeelay he garsoorayaashii oo dhan kitaabka jaamacahoo gacanta u saarsaaray war inta xil haysa midaan la soo dhaarin ma leh waxna laguma dheefine maxaa siyaada ma kitaab cusubaa la mariyey eedda cambaroy war mahayside islaan ooyayso cadaalad darra ka cabanaysaa madaxweynaha ku dhegtay oo ku kar barooratay weliba war waxaa la yidhi in kastoo xubno badan la xulo xilalna loo dhiibo in kastooy xariiraan khudboo dhaar xaf lagu siiyo xoog iyo haddii xeel intaba laysku wada xoorshay xinjir daadshe iyo xaasid xamar laga xorayn waa aryaa xinjirtaasaan ku xusuusnay shabeellada hoose amiir ummadda xaaxda u keeno xoolaha ka aruuri jira xabad cirkaas ka soo dhacdayu xarsha murshaha ka dhigto war waxaa la yidhi nimaan cimraynin ceel bagey cirkaa wax looga soo ridaa war cirka xaysaa ka dihi jiray iyo roobe miyaa xabada ka da'an hadda muggi ameerikaan la arko war adeer somalilan cirkaa wixii eega xabsiguu liinta ku cabbaa war maalin dhoweed akademiya caga la yidhaahdo waxay dhaheen saxaafaddan af soomaaliga baraynaa shilayna u qabteen 30 cashi soconaya aga ma eega af soomaaliga la bari oo go'aan ahayna ma ku dareen mayee awowgiin la gubiyey ay ku dareen war yaaya see aga af soomaali dad u baree war ariirow baa baraaye maxaa aga ku diidee war abwaankaa dheeri la yidhaahdaa wuxuu ku hees aga caashaqaygow awowgii la naaryow midhaa eegga dabadeed oodahaynu kala rogan war weydiintii kal horeetiyo warka yaa u wakiishay weli waa socotaaye nimankan hawsha walaaqa warka yaa u wakiishay aryaa waa kala maano dadweynahay matelaanoo wakhtigaa u wakiishay war yaa warallow u wakiishay weyddiintan joogtada ah hadduu jacaylku qodax yahay anigaa ku rorogsadhay waraa wakhtigu baarlamaan miya kulanala rogsandhe aryaadhaha korkiinnu ha qaacee waxaas war iyo hees maahine iga hor tag wariga maanaga jidadka kaa xirna odagaagaa fargeetada daabtu qowray macnaa ayu ku fadi waryaa tag weji macbuus yahow